waxaa subaxnimadii hore ee saaka soo gaadhay xarunta safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay dalkani Kenya wafdi ka kooban dhowr xubnood oo uu hogaaminayo xogayaha guud ee maamul goboleedka IGAD Maxbuub Macalin Maxamed. wafdigaasi oo safaaradda uu ku qaabilay kuna soo dhaweeyay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya Baasha Cawil Xaajo Cumar, halkaasina ay ku wada qaateen shir soconayay muddo saacada. xogayaha guud ee maamul goboleedka IGAD oo wehelinayo mas'uul sare oo ka tirsan maamul goboleedka IGAD, halka safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya uu shirkaasi ku wehelinayay safiir ku-xigeenka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya ayaa la salaadiiriyay. shirkan oo ahaa mid albaabadu xidhan yihiin TV-gana loo ogol yahay kaliya muuqaal kooban iyo sawirro, ayaa kadib markii shirkaasi uu soo dhamaaday waxa warbixin kooban ka siiyay TV-ga qaranka Soomaaliland ee ka howlgala magaalada Nairobi safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya Baasha Cawil Xaajo Cumar, waxaanu ku bilaabay sidatan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. waxaa maanta nagu soo booqday xafiiska safaaradda Soomaaliland ee dalka Kenya xogayaha guud ee ururka IGAD Maxbuub Macalin oo isla markaana ah chairmanka Kenya Power. Maxbuub oo ahaa xogaye muddo dheer u ahaa ururka IGAD, waxaa runtii farxad weyn oo ahayd inuu maanta kulan halkan saacad qaatay kula kulano anagoo ka wada hadalay arrimo badan oo la xiriira Soomaaliland iyo mashaariicda ay ururka IGAD ka wado, haday noqoto iskuulka Sheekh veterinary-ga ah ay dhiseen, iyo haday noqoto mashaariic kale oo iminka biyaha ahaa oo iyaguna ay fuliyeen iyo kuwa kale iminka ay soo wadaanba. waxaa kaloo Maxbuub aan ka wada hadalay arrimaha mandaqada ka socota hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin IGAD. waxaan hoosta ka xariiqay inay isha hawsha ku hayaan dhawaanna insha Allah dalka imanay doonaan lana kulmi doonaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka kalena la kulmi doonaan madaxda Soomaaliya. hawshaasina tahay hawlaha ugu waaweyn ee ururku uu isha ku haya ama saariyo ahmiyadda. dhanka kale Maxbuub oo ah nin siyaasi ah oo dalka Kenya ka haya chairmanka Kenya Power, waxaan isla soo qaadnay sidii loo dhiirigelin lahaa ama loo sameyn lahaa xiriir ganacsi oo ka dhaxeeya labada qayb dawladood ee dawladda Kenya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland. hawshaana runtii ay tahay hawlaha ugu muhiimsan ee xafiiskan safaaraddu uu xooga saarayo. marka guud ahaan waxaad oran kartaa wuxuu ahaa kulan aad u muhiim ah oo aan qodobadii ka wada hadalay iyo wixii lagu kala qaatay runtii noqon doonaan waxtar weyn u geystay. waxaan uga mahad celinaynaa Maxbuub oo ahaa runtii muddada uu xilka joogay IGAD ka shaqeeyay mashaariic dhaxalgala oo tusaale u noqon karaya wada shaqeynta iyo isku xidhka regionka tahayna mid Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkeedu runtii abaal ugu hayaan. aad iyo aad baan ugu mahadinayaa mas'uulka. dhanka kalena insha Allah waxaynu rajeynaynaa xafiiska hawlihiisa iminka ku guda jira hadday noqoto kulamadii jaaliyadda aan la qaadanaynay, hadday noqoto kuwii kale ganacsatada iyaguna ku dhaqan halkan aan la wadnay, hadday noqoto iyagu xaggii dib u habeynta xafiiska, iyo hadday noqoto kulamadii siyaasiga ahaa aan la wadnay mas'uuliyiinta ka socda dalka Kenya oo iyagana aanu la kulanay wasiiro qaar kalena noo balansan yihiin. insha Allahna muddo dhow aanu samayn doono isbedelo waaweyn insha Allah uu sameeyaa ama horumar ku sameeyaa isu socodkii iyo xiriirkii labada dawladood ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Kenya. Cabdillaahi Cabdi Cali, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.